dadweynaha reer Soomaaliland ee degan waddanka Britain gaar ahaan magaalada London ee jecel dalkooda iyo dadkooda iyo dawladnimadaba ayaa waxay baaq nabadeed u direen shacabka Soomaaliland iyo xisbiga kulmiye iyagoo ka codsanaya in la ilaaliyo nabadgelyada iyo qarannimada. daladoodina waxa kamid ahaa sida tan. anigoo Axmed Ismaaciil Warsame halka waxaan baaq nabadgeliyo oo qurux badan oo fiican oo kalgacal iyo xiisale uga jeedinaya madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamuud Siiraayo isaga iyo Soomaaliland oo dhanna waa soo salaamaya waxaana leeyahay madaxweyne cimrigaaga Allah raajiyo dalka si wanaagsan ma lagu doortay si wanaagsanna waad u xukuntay nabadgelyo qiimo badan iyo shaqo qurux badan baynu haysanaa xisbiga kulmiyana meel wanaagsan buu soo gaarsiiyay dalka madaxweyne iyo gudoomiye iyo dhammaanba waxaan idin leeyahay geeska Afrika iyo adduunka oo dhan maanta waxa la inagu kantaa waa nabadgelyadaasina inaa ilaalisaan oo si qurux badan dadka iyo dalkaba u maamushaan idinkuna si wanaagsan oo fiican isoo afkarataan ayaan anigu baaqa idinku jeedinaya wassalaamu calaykum. halkan waxaa ka hadlaya Axmed Maxamed Ige ayaa magacayga leeyahay waxaan ku magac dheerahay Axmed Xano waxaan la hadlayaa ummadda reer Soomaaliland oo dhan waxaan leeyahay nabadgelyo ayaynu ku waarnay nabadgelyaynu halkaa ku soo gaadhnay ku caanamaalay ummadda Ilaahay oo dhan inoo taqaanaa waxaynu ummadda Ilaahay ka iibinaa waa nabadgelyo Soomaali oo dhan baa inoo soo qaxday oo waddankeennii joogta waxaan leeyahay nabadgelyadu waa caano waa in nabadgelyada la ilaaliyo oo qof waliba halku joogo ka ilaaliyo oo qof waloo kursiga madaxnimo doonaya iyo mid madaxoo ku fadhiya labaduba nabadgelyo ku joogaan waxaan leeyahay nabadgelyada la ilaaliyo nimanka guurtidaana waanu mahadnaqayaa magaranaysaa maanta soo dhex galay weligeed baa dhaqanka u ahayd markay Soomaaliland maxay ahayd khilaafiye dhacaan waa u soo ducaynaynaa dadka qurbaa joogaana wadnaha ay farta ku hayaan Soomaad garan waayo meel kale leeyin de ma jirto Soomaad garan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta waxaana keenay inaan halkan ka hadalno oo kalifay wax weeye wadnahan farta ku haynaayo waxaan leenahay war wadankii yaraa ee wanaagsanaa ee u soo hiroobayseen waxay guuxan ka socdaa waxaan leenahay dhammaantiin مجاهد iyo muxaafid iyo mucaarid dhammaantiinba inay ilaalisaan nabadgelyada kana shaqeysaan nabadgelyadu waa waxa laga soo gaadhnay saaxiibkayga ugu horeeyay saas Axmed u sheegay waxaan leenahay nabadgelyadu waa qaali walaalayaal nabadgelyada caanale nabad baa caanale mujaahidiintuna wixii yaraa u soo dhibaatoodeen ay u soo gubteen un bay ilaalinayaan wax kale uma jeedaan xoogaag yaraa oo iskhilaafkii soo dhaxgalay kulmiye xisbiga kulmiye waxaan u malaynayaa Soomaaliland waxay halka ku soo gaadhay oo caano iyo ku nabad iyo caano keeneen oo maanta aad arkayso waddankeennii oo iskuuladii iyo jaamacadihii iyo businesskii iyo nabadgelyada sida loogu noolay dadkiiba u soo wada hiloobayo in iskhilaaf yar oo aan macna lahayn la isu qabsato talabaad maadaama aad xisbigu yahay xisbi xaakimkii waxa loo baahan yahay wuxuudu inay dibadaba uga soo bixin inay wuxuuda ku dhamaysan waliba ragga meesha ka buuxa waa raggii waddanka u soo halgamay oo nabadgelyada maanta lagu naaloonayo dhaliyay maantana hadda I don't think inay u diyaar yihiin midna inuu bahasha daaqada ka tuuro nabadgelyada dadka reer Soomaaliland mar walba waxay doonayaan in wadankoodaas nabad iyo horumar kaas waxaan leenahay xisbiga kulmiye gudoomiyaha iyo madaxweynahaba iyo inta kaleba waxa khilaafadu yimaado wanaag baa lagu dhameeyaa in dadkii iyo dhalinyaradii ay wax maqlaan ma wanaagsana haddaanu anagu nahay qurba joogta reer Soomaaliland wax laga xumaado weeye waxaanu leenahay arrinka lagu soo daboolo wanaag waxa jira waxyaabaha TV-ga hadalka la isku marinayaan waxa ay keenaysaa fool xumo iyo qofka mar walba iska hadlay meesha yimaadeen dadku nacaan runtii xisbi waliba waxa ka dhacda in uu yimaado khilaaf uu dhaca khilaafkan waa la saxaa waddanku wuxuu leeyahay constitution xisbiguna wuxuu leeyahay constitution waxa wanaagsan oo aad u qurux badan in
in mar walba lagu xalilo xisbiga constitutionkiisa si ay nabadana in laga shaqeeyo waa arrin aad u muhiim ah. Cabdiraxmaan Axmed Egool, TV qaranka Soomaaliland, magaalada London.